slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. waxaan booqanaynaa website-ka la yiraahdo platform Leopolis oo spaceka soo gudbiya marka waxyaabaha aan ka fiirsanayno adduunka waxyaabaha ka dhacaya dushiisa oo isku dulmahee haabaya hadday ahaadaan dhagxaan hadday ahaadaan burburka haraadiga roketyadii lagu tuuray markii adduunka ugu horeysay ee dadkii bini'aadamka gaaray inay satellite u diraan cirka oo 1957 October 4 marka ilaa iyo hadda wixii la tuurayay qaraadigii ka harharay satellite-yada hadda cirka dul wareegaya kuwa spaceka ah oo degan oo meesha waxna oo kasoo tabiya adduunka marka waxaan yar aad arkaysa hadda waa koonkii aan ku jirno waxaan kale waa galaxy intiisa kaleeto oo xidigihii ka mid yihiin qorraxdii Mars iyo sidoo kale etc marka waxaan soo dhaweynaynaa hadda oo zoom out adheena maxaa la yiraahdaa koonkii aan ku jirnay adduunyada ahaa waxaa noogu soo horeysa qaaradii Antarctica ee Afrika hoosteeda ku taalay waxaan waa qaaradii Afrika waxaan greenka aad arkayso ku dul heehaabsan buluuga korkiisa ku wareegsan oo waxyaabaha ay ku reebeen maxaa la yiraahdaa waxyaabaha culus ee adduunka dul wareeganayo qaar ka mid ah waa satellite-yada qaar ka mid ah waxaa waaye debris wax la yiraahdo oo aan ahayn burburka haraadiga maxaa la yiraahdaa roketyadii la diray sanadkii 1957 ilaa iyo hadda inta u dhex leh oo rocket markii la diro satellite kale loo baahan yahay in kor tage wixii ka soo haraa wuxuu iska noqdaa meerayaasha adduunka ku dul hareeraa ku dul wareegaa iyo objectiyo kale oo aan la aqoonin waxay yihiin lamaba garanayo waxaa kaloo jiro burburkaas haraadigii ka haray gantaalada la tuuray qaarkood effective waayo oo yani iska dul wareeganayaan adduunka laakiin waxaa laga yaabaa inay koonaha adduunka soo dul galaan marka hadda waxaan dul tegaynaa halkana qaaradii South America oo loo yaqaanay tanina waa qaaradii Americadii weyneyd North America oo Canada Mexico iyo ay ka mid yihiin USA waxaa aadaynaa dhanka iyo Asia oo watana halkan waa Asia India qaaradda Oceania la yiraahdo oo Australia ugu weyn tahay jasiiradaha ku yaala badda dhexdeeda Oceania qaaradda la yiraahdo waaye dhanka kale hadda u sii socono watana Afrikadii weyneyd ee ballaarneed ilaahay naga beeray Yurubna watana xaggan ku taala marka maanta si qaasatan waxaan u booqanaynaa zoom out dhaho qaaradda Soomaaliya waddanka Soomaaliya korkiisa wax dul heehaabaya aragna halkani waa Central Africadii waa meeshii lake u yaalay Victoria waa halkan marka Uganda iyo areadeeda tanna waa Soomaaliya oo hoonkii ama geeskii Afrika marka Soomaaliya hadda saacadan la joogo dusheeda waxaa haabay waxaana arkayso qaarkood ay burburka yihiin qaarna satellite oo active ah hadda jiro oo shaqeynaya kuwa kalena dhagxaanta waxa gaduudka ah waa burburka waxa greenka ah oo very dark ahna waxaa waaye waa objectiyo oo la yiraahdo wax culus oo adduunka dul heehaabaya ama ingiriiska lagu yiraahdo play loud kuwa yararka oo asagana shape-ka leh oo sidaan oo kale satellite-ka waaye yellowga ayagana waxay u fadhiyaan burburka qayb ka mid ah rocket wax ka hara waa debris-ga laakiin waxaa waaye waa dhagxaan iyo waxyaabo aanan yani adduunka soo galin laakiin hadday soo galaan halis weyn ku leh marka qaaradeeni hooyo watana Soomaaliya waxaan fiirinaynaa marka wax walba soo yaal hadda green leh wada arkaysaa iyo red iyo blue yar soo haddaan kan debris-ga taabano pinkiya soo baxayo oo yani waxyaabaha objectiyada iska heehaabayo aanan ahayn dhagxaanta waxaan unknown camal ah oo dul heehaabayo kana waa beamskii ama light-ka oo
satellite-yada ay ku bixinayaan ifka si ay u arkaan inside-ka adduunka wax ka dhex dhacaya. Instrument waa qalabkii oo satellite-yada sida waxay u samaysan yihiin soo maaha instrumentiga bahasha la yiraahdo iyo waxyaabaha pianoda iyo kale. Follow earth sida ula wareegsanaysid oo kuu fasaxayo asaga inuu automatic kugu wareejiyo oo refresh marka automatic refresh kana isku sameynaya ina wixii uu ku dhaafay hadana recycle mid kale ta arkaysa soo baxaya. Marka waa tan qaaradeeni hooyo. I just went far. Waa kana marka Soomaaliya iyo adduunka intiisa kaleeto ayaan wixii baa dul ceegaaga oo dul wareegaya ay fahanteen. Marka website-kan wuxuu ku tusinayaa caalamka halka ka joogtid waxyaabaha kugu dul wareegaya waxa aadan arkaynin hadda si zoom gareeyo si fiican waxa kugu soo baxaya object-yadii ama ashyaadii ku muuqanaysa. Hadda pinkiga qabsado marka hore green oo ahaa pinkiga waxaa keenay I think debris-ga keenaya. Debris wax qashin ay leeyihiin laakiin waa wax ilaahay cilmigiisa maxaa la yiraahdaa ay yihiin mala yacni meesha iskaga wareegayaan kulli shay halik. Marka haddaad ka heshay please no doubt big thumbs up and share with asxaabtaada oo maasanta.